damiskii bay ahaayeen hooyadiisii iyo gaarintiisii ragga Soomaaliland maanta
geesigan galaabani gaadadou dhigo gumuciyo rasaas sumuciyo gantaar gumuciyo rasaas sumuciyo gantaar geesigan galaabani gaadadou dhigo ciidankii asluubta ciidanka asluubta gaadiidkoodii kala duwanaa ciidankii bileeskuna waa inoo soo dhaqaaqayaan igashe abaal inan gudo wanaag way gudboon tahay waa hagaag ciidanka asluubtu gaadiidkoodii bay ku mareen generaalka hogaamiye ciidanka booliska Soomaaliya igashe abaal wuxuu ku dhaadan doonaa soddon faras oo tababaran oo ka tirsan ciidanka booliska ay leeyihiin ogsoonada fardo waxay ahaayeen tiknikada ugu caansanay waayadii Soomaalidu ay ahayd Soomaalida keliya ciidanka fardoolida ama rasuubleyda lagu jiro ciidamada gaadiidkaale ciidankii fardoolida ee bileeska Somaliland ayaa hadda inagu soo foole wale tuuga lagu eriyada faras ayaa la yidhi amaba burcadda lagu eriyada faras ayaa la istaagay weliba insha Allah ciidanka bileeska qortaa waxaa ugu jirta in sida caalamka ay tababaraan oo iyana ay ka qayb qaataan howlaha nabadgelyada ciidanka fardoolida ee bileeska jamhuuriyadda Somaliland oo fardoodu ay midab cas ku sharaxan yihiin ayaa halkan maraya waa ciidanka fardoolida ee bileeska jamhuuriyadda Somaliland maasha Allah tabaaraka Allah ciidamadii kale bileeska hadda fardaydeedii haddii gaadiidku ay farabadnaayeen oo ay casaayeen oo green ay ahaanaya darin farda cascas ayaa ciidankii bileeska ay soo heeseeyeen oo ay halkan marinayaan marka horena sarkaalkii oo garashadii xiran oo faras ku saaran maasha Allah tabaaraka Allah ciidanka fardoolida ee bileeska jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne fardoolida iyo xukuumaddiisa Gulufiyo
حسب بدل عيدا كي بليس كترافي كذي بقى ولسه عطا الله ده حريص مدحويني محمد حاج جمال عقال قدرتي waxa kamid ah hadii hubka aad gacanta ku hayso iyo lixdii codkii fanaan kariim nuur jaamac aadan nuur jaamac iyo muusigii al-ustaad maxamed karaama siidi karaama studio london UK hubkina waa kii aynu xareynay hub qaran buu yahay maanta waa ragii soo dhisay jamhuuriyadda Somaliland halka ay soo gaartay waxay la tahay hadii cod loo qaado ciidan aan lambar 1 haysan ma jiro maanta ciidan kasta waa lambar 1 Allah siyaadiyo waxa ka shaqeeyay ciidan ka hawlgashay Allah ay ka hawlgaliyo dowladda ciidanka booliska kala galay dambiilayaal iyo mudaharaad iyo qulaada in laga hortago ma sha Allah waxay ka mid yihiin ciidamada ay soo horada dhigeen cadawga markay arkaan gabdhayo walba way leeyihiin lama kala garto dhinacay u jeedaan iyo dhinacay ka jeedaan sida u fadhiyaan iyo sida qoriga u cadawga iyo rabshadoodaha gacanta ugu hayaan ciidan aad u culus ciidan lafdhabara ciidan habeen iyo maalin iyo casar iyo duhur ka shaqeeya amniga iyo sugitaankiisa waxa cadawga wadnaha ka soo rida nimankaasi waa keebla Yurub baa la dhamaan la markaad aragto cadawgu waxay naxaan sii jeedkooda iyo soo jeedkooda kursiga u qaybsan marka ay ku soo dhaqaaqaan nin kastoo xumaan wadana jeeda ayuu ka dhaqaaqaa ciidanka RRU-da noolaada idinkii qoryihiin oo maanta la tabaarkala waa ciidanka RRU-da iyo qayb bilis kamid ah iyaguna waxay ma dooro kulay ciidankii birmadka loo oran jiray ciidamada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Somaliland uu leeyahay waa marka abtirsiinta ciidanka hoos loogu dhaadhaco ayay ka mid yihiin gaadiidkooda waa aragtaan waa ciidanka gurmadka ma sha Allah Allah idin barakeeyo weli fari kama qada waxay ka soo muuqdaan ilaa iyo meel fog ciidankeenu ammaan bay istaahilaan qaliil ma istaahilaan eedayn ma istaahilaan cid bay iska xidhaan iyo cid bay waxyeelayn karaan cid kasta oo jira waa cid ciidanka wax u dhintay waa rag naftooda hurayaala waa rag heegan oo dalka iyo dadka iyo ciidooda iyo difaacooda
qof kasta oo dembiilihii wuu og yahay in ama kolley la xidhayo ama maxkamad la geynayo ama sharciga la hor keenayo marka cabasho dembiile iyadu meel ma gaadho laakiin waxa weeye ciidan ammaan iyo sharaf isaga iyo madaxdiisuba ay huwan yihiin ciidan ku gaashaaman gaadiid loogu talagalay in ay meel walba jeexi karaan oo ay mari karaan ciidan dalka gees ilaa gees bintukodhaq ilaa iyo looyacaddo iska gudbi kara oo gaadhi kara ciidan soo jeebayn kara cid kasta oo nabadgelyo darro iyo rabshad iyo qas intaba abuuri karta allah idin barakeeyo maasha allah madaxweynuhu waa idinka qaaday salaadiina baabuurta dushooda insha allah waa ku mahadsantiin waa tahay ciidanka RRUda iyo birmadka waa ciidan aan dhagaxu gaari karin haddii dhagax lagu turo iyo wax la mida toona maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah ciidan u diyaara geeskooda dee wada sheegi kari maayo ciidanka yacni sidii kobrahay qaarada iyay u labisan yihiin waa ciidan aad iyo aad u dhisan oo u qurux badan oo u bilicsan maasha allah tabaaraka allah adigo dhammaan ciidamada bilayska jamhuuriyadda somalilan iyagoo nabadgelyada ka mas-uula ilaahay kasta kow nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalooyinka gudahooda ama dalka gudihiisa haddii ay ciidamada bilayska ee caadiga yihiin haddii ay yihiin ciidamada birmadka haddii ay yihiin ciidamada RRUda dhammaantoodba ciidamada iyo gaadiidkooda iyo ciidankooda iyo saraakiishooda ilaa tanag waa ciidan kaalin muhiima ugu jira qarankani jamhuuriyadda somalilan magaalooyinkeenna maanta waynu ognahay nabadgelyada taamka ee ka jirta shacbiga somalilan waxa uu ka mid yahay ciidankani ciidamada la saaxiib ah shacbiga weeyaan ciidankani waa ciidan loo baahan yahay maadaama nabadgelyada gudaha si xoog uga shaqeeyaan cadowga gudaha ay ilaaliyaan kuwa shadaha wada ay ka ilaaliyaan kuwa qaraanqalka wada ay ilaaliyaan kuwa beenta iyo kudirka keena ay ka ilaaliyaan in shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee magaalooyinka ku nooli ay la shaqeeyaan guud ahaanba ciidankaasi hadday yihiin ciidanka CSI-da iyo haddii ay yihiin ciidamada kale ee bilayska jamhuuriyadda ciidamada bilayska jamhuuriyadda somalilan ka sokow qoriga ay nabadgelyada ku ilaaliyaan ka sokow qalinka ay nabadgelyada ku ilaaliyaan ka sokow cilmiga ay nabadgelyada ku ilaaliyaan haddana kama maqna haddii loo baahdo ciidamada tiknikada bilayska jamhuuriyadda somalilan oo iyaguna doorkooda ka qaata haddiiba loo baahdo in tikniko laga qayb galo haddii cadow yimaado ilaahay inaguma keenee hase ahaatee waxaa la qirayaa in aanu cadow soo hawaysan karin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaanu leenahay ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan oo guud ahaanba ciidamada qalabka sida laysku yidhaahdo haddii ay bilays yihiin iyo haddii ay yihiin ciidan qaran iyo haddii ay yihiin ciidan debdebid iyo haddii ay yihiin ciidan socdaal iyo haddii ay yihiin ciidan asluubeed iyo haddii ay yihiin ciidanka baddaba dhammaantood waxaa laysku yidhahdaa ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ilaaha awoodda leh waxaynu ka baryanaa in qarankani somalilan oo ku socda awoodaha ilaahay inuu ku galo qaranka jamhuuriyadda somalilan hadday ciidan tahay iyo haddii ay hoggaan tahay iyo haddii ay shaqaalo tahay iyo haddii ay dhammaanba shacbiga somalilan dalka sii joogaanba tahay horumarka qarankani
weydiisanayo ictiraafka qarankani uu ka doonayo caalamka ictiraafkii ilaahay baynu haysanaa ka caalamkana insha allahu bismi illaahi kariim waynu heli doonaa beesha caalamka ayaynu ka mid noqon doonaa maanta waxaynu ku leenahay beesha caalamka saaxiibbo aad u tiro badan saaxiibbo dhow baynu ku leenahay maanta caalamku indhahoodu waxay soo eegayaan halkan socdaalkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayaa ay ku tegeen waddanka maraykanku waxay oo ka ah awoodda ugu weyn xuduudaha caalamkan maamula casuumaddii ay u fideen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxay ina tusaysaa sida qarankani caalamka ugu soo jeedo sida qarankani ictiraafkiisa ugu soo dhowaaday wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan oo ka horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu tegey waddanka taiwan waxa uu ka mid yahay waddamada aynu heshiiska dhow leenahay waddanka taiwan waxa uu ka mid yahay waddamada wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan maanta xidhiidhka lale waddanka taiwan waxa uu ka mid yahay waddamada sida xoogga ay looga caawiyey covid-19kii waddanka taiwan waxa uu ka mid yahay waddamadii gurmadkii abaaraha ka soo qayb qaatay xanuunka goortagiisa ka soo qayb qaatay waddanka taiwan maanta waxa uu ka mid yahay waddanka caalamka ee sideedoo kale hase ahaatay isagu dhinacyo fara badan ayuu ka horumaray dhinacyo fara badan buu inaga caawinayaa wasaaraddeena waxbarashada jamhuuriyadda somalilan dhinacyo fara badan ayuu ka caawiyey arday ayaa haatan tagtay waddankaas taiwan oo waxay loo soo barayaan dalal kale oo caalamka ka mid ayaa sidaas la mid ah waddanka etoobiya ayaa ka mid ah oo ciidan fara badan loo soo tababaray dalal kale oo iyaguna si u soo dhowaanay ayaa jira waddanka kenya ayaa ka mid ah maanta waxaa ku sugan halkan wufuud ka socota waddanka etoobiya oo madaxweyne ku-xigeenka islaamka soomaalidu hogaaminayo waddanka jamhuuriyadda jabuuti oo iyaguna saaxiib aynu la nahay waddanka uganda oo iyaguna saaxiib dhow aynu la noqonnay waddanka USA ama maraykanka united arab imaaraat ama iskaga imaaraadka carabta safaaradaha jooga waxaa ka mid ah waddanka etoobiya jabuuti taiwan united arab imaaraat kenya iyo dalal kale oo iyaguna ina soo hambalyeynaya waxaan guusananaa horumar ay isla kaan qaado beesha maanta waddankeenu u marayaa heerkii ugu wanaagsanaa maanta waddankeenu waxa uu marayaa heer aynu ku faanno maanta waddankeenu waxa uu maraya heer aynu ku damaashaadno damaashaadkii ugu sareeyey insha allahu bismi illaahi kariim allah awoodana waxaynu ka baryanaa in maydeeda uu inagu gaadhsiiyo bashbashiyo barwaaqo meedeeda uu inagu gaadhsiiyo ixtiraaf buuxa maydeeda inagu gaadhsiiyo horumar buuxa maydeeda inagu gaadhsiiyo daarahaasuu abiib ka sheekaynayey maxamed xaaji gaal maalintii waxbaan ka duubayey cabdi idris ducaale allah u naxariisto afhayeenka madaxtooyada ahaa baan la shaqayn jiray wariyaha madaxtooyada u qaabilsanaa baan ahaa waxa uu madaxweynuhu faqaaraha khayryada ka yidhi allah u naxariistee 10 sannadood inaan noolaan doono iyo in kale ma ogiye u malayn maayo inaan noolaan doonee daara dhaadheer ayaa hargeysa lagu arki doono maanta daarihii dhaadheera ayaynu maranaa insha allah bismillaahi kariim daarahaa si dhaadheerna way sii socon doonaan waddooyinka caasimad iyo gobollada iyo socon doonaan ayaa igu jirtaa insha allah bismillaahi kariim ilaahay waxaan allahayna barbar qabo waa hagaag ciidamadii kala duwanaa baa weli maraya ciidankii bilayska ayaa waxaanu baa rag fara badan oo dalkan soo gashaday haddii kale laga yimaado madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed haddii aynu dareenkooda weyddiinno waxaan hubaa oo calooshaydu og tahay in ay ilma ka iman lahayd maanta halka aynu taagannahay iyo maalmaha qaarkood meel ay taagnaayeen iyo hal ay soo mareen rag fara badan baa la soo maray rag fara badan baa dhintay rag fara badan baa nool rag fara badan baa da'a rag fara badan baa tiifa laakiin nasiibka ayaa ku simay ilaahay idankii cimriga allah u dheereeyo caafimaadkaba koob iyo soddonguurada la soo noqoshada madaxbannaanida somalilan waxay dheer tahay kuwii hore waa heerkii ugu sarreeyey ee lagu xuso maalinka maanta ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu mandarkiisa inoo furo oo roobab lagu qabowsado ku nasto oo la cabo oo ku maydho uu ilaahay ummaddiisa siiyo dad iyo duunyada abaaruhu way jiraan gurmadku wuu socdaa koofidkii iyo wixii adduunyada ka jira way jiraan kuwaana waynu ka alla baryaynaa oo ilaahay idankii waxaynu leenahay sidaa aynu wada jirka ugu soconno ilaahay haynaga dulqaado booydihii iyagu ciidanka bilayska oo
malaha xagga oo barqadii biyaha ka soo qaaday oo maqnaa way sanadka biliiska hadda wuxuu nagu soo fasaxay ciidanka booliska maasha allah tabaaraka allah mudane madaxweyne booyado xawaaro sare ku socdaa ku salaamaya baabuur la mid oo biliisku leeyahay ayaa ku salaamaysa waxaa inoo dambeeya ciidamada militariga gaadiidkoodii oo aynu sugi doonaa haddii allaha awoodda inoo oggolaado meydan iyo meyo kale ilaahay dalka oo nabada iyo dadka oo nabada ha inagu gaadhsiiyo cadowga somalilan waxyeelladiisa ugu weyne waxay tahay maanta indhahoodu waxa ay arkayaan indhaha cadowgu waxa ay arkayaan nimanka ciidanka ah ee habeen iyo maalin inoo xidhxidhan ee inoo shiraban ee inoo diyaarkaa ee aan nuuxsanaynin waxa weeye deeqaha ilaahay dalkani uu siiyey mudane madaxweyne waxaa soo diyaaray insha allah qaybaha dambe ee xafladda oo aan weli naga dhammaanin ciidamadii quruxda badnaa ee loo hagar baxay ee dhaqaalaha yar ee dalkani uu leeyahay lagu dhisay ee lagu maalgeliyey ee aad arkayseen sidii caalamka in ay u dhisnaayeen waxaan bal hadda isaga loo aad iiga yar oo carruura ayaan weyddiin doonaa bal hadda maanta waxay ka dareemaysa somalilan iyo dareenkeedu sida uu yahay gabadh weliyaah oo actifa laakiin aan sidan oo kale arag maanta xusbu uu ku yahay wax ku cusba sagalay xabiib waad mahadsantahay waa run waa 18 May ugu horreeyaan stageka ka soo tabiyo musa hore u sheegay farxadda guud ahaan waxay farxad u tahay dhallinyarada 19 ka dambeysay wuxuu qarankana guud ahaan farxadda u tahay wuxuu ku naaloonayaa in daayartiisii ay kacday ay maanta mas'uuliyiin yihiin isla markaasina ay qarankooda dhinac ka taagan yihiin adigoo marka laga yimaado ciidamadii kala duwan ay xataa halkan marayay dhammaantood waxaad arkaysa xataa inay dhallinyaro hayeen arrintaas waxay muujinaysaa in dhallinyaradu ay qaranka gelinayaan energy ay hayeen ka nasinayaan yaashii shaqadii adkayda ay soo qabteen ay diyaar u yihiin iyaguna inay shaqaada qabtaan waxaa xusid mudan iminka waxaynu sugaynaa saanadii kala duwaneed ee ciidanka qaranka ee somalilan gaar ahaan ciidanka militariga oo leh noocyo duwan waxaan ugu bishaaraynayaa bulshooyinka reer somalilan in ciidamada halkan maray quruxda badan ay arkayeen ay in yar oo saambalown ay tahay balse gudihii ciidamada ay ku maqan yihiin hubkii uu ku maqan yahay ciidamadii kala duwanaa ay qolo waliba dhinacoodii hayso waxaad si toos ah nooga daawanaysaan telefishinka qaranka idaacadda raadiyo hargeysa guud ahaan telefishinada afka soomaaliga ku hadla baraha ay bulshada ku kulanto internetka oo door muhiima ay dhinmaygan abigo aad moodo inay si weyn uga qaadanayaan iyadoo barihii bulshadu ay koreen uu ay dhinmaygan ku soo beegmay waxaa xusid mudan waxaa qayb ka ah boqolaal iyo boqolaal ka mid ah iyo kumanaan ka mid ah shacabka caasimadda hargeysa dabaaldega halkan ka dhacaya somalilan oo dhan cidhif ilaa cidhif ayaa laga dabaaldegayaa gobolladii waaweynaa sida togdheer awdal berbera laascaanood ceerigaab waxaa ka socdaa munaasabado kuwan oo kale ah waxaa maraya ciidamo kuwan oo kale ah taasi waxay muujinaysaa in xuduudda somalilan ay tahay mid ay dhisantay waxaa inoo bilaabmay iminka si toosa gaadiidka ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan mudane madaxweyne gaadiidkan iyo saanadan quruxda badan aad arkaysaa waxay ku timi isku tashiga shacabka reer somalilan ay isku tashadeen cashuurta bixiyeen taas ayaa suuro gelisay in maanta heerkan la gaadho gaadiid kala duwan bay ciidamadu ku gaashaaman yihiin iyo hub kala duwan taasoo muujinaysa in somalilan aanay cadowga ugu soo dhowaan karin cid walba ay halkeeda kaga adag tahay waxay suuro gelisay arrintani in somalilan ay ka badbaado mandaqadda xasaasiga ah ee leh argagixisada burcadbadeeda waxaa suuro geliyey inay ka badbaado waa dadkan iyo dalkan isku tashtay iyo ciidamadan quruxda badan ee horteenna maraya mudane madaxweyne raggan waa ragga xuduudda soo sugay waa ragga xabadda beerka u dhigay waa ragga haddii odayaashii hore ay ku faarayaan in qaranka ay xoreeyeen iyaguna maanta diyaar u ah inay soo sugeen xuduudaha qaranka jamhuuriyadda somalilan hambalyo 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 ayaanu leenahay abiib imaan baan ku wareejinaya sagalay qoryaha magacyadooda maxaad ka taqaanaa baabuurta saaran waa technical waad mahadsan tahay waa technico ciidamada militariga ee jamhuuriyadda somalilan gaadiidkoogii tiknikada ahaa ee gaashaanaa weey mudane madaxweyne waxaa ku salaamaya ciidanka militariga jamhuuriyadda somalilan
dhallinyarada saaran qoryaha dhallinyarada gaadiidka saaran dhallinyarada xuduudaha iyo meelaha fogfog iyo ceelasha iyo meel kasta oo la isku dilo waa mahadsan yahay isbatooruhu dhallinyarada u shaqaysa mar walba ee u heegankaa ciidamada kala duwan waa ciidankii militariga ee dalka jamhuuriyadda somalilan ciidankii militariga ciidanka militariga kooda gaasaaman ayaa halkan weli mudan madaxweyne salaanta waxaa cusub mudan 18 May iyo xuskan agaasimaha guud ee madaxtooyada ninka maxamed cali bile lagu magacaabo qaybta shaxsaxda ayuu dawladda u qaabilsanaa wuxuu ahaa ninka suuro geliyey hayriyadii ugu qurux badnayd ee aynu aragno iyo meelo fara badan ammaan buu ku mudan yahay waa dadka soo shaqeeyey guddida qabanqaabadu ammaan bay ku mudan yihiin waa beebeegii militariga ciidanka militariga ciidankii tiknikada ayaa socda waxaa ka muuqata horumar ballaaran oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan sanadba sanadka ka dambeeya ay sii gaadhayaan waxaa haatan salaanta bixinaya madaxweynaha siinaya ciidamada tiknikada gaar ahaana ciidanka beebeeyada guuxaasi iyo higigtaasi dhawaaqaasi haddii dadku ay maqlayaan hawada inaga daawanaya ama reediyoga inala socdaa ama shabakadaha kale inagala socdaaba ama tiifiyada inagala socdaa guuxyadan waa ciidanka tiknikada oo qaybo kala duwan ka kooban gaadiidkaasi tiknikada oo cadow kasta oo dalkan is idhaahda nabadgelyo darro ku keen aanay ku keeni karin u jilibdhiga hadhiya habeenba u soo jeeda dalkooda hooyo xuduudaha suga madaafiicda goobta ayaa halkani maraya ay jiidayso baabuur cusub oo jiidaysa waxaa muuqata in ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay si weyn u jamhuuriyadda somalilan ay si weyn u dhistay dhammaanba ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda somalilan guud ahaan iyo gaar ahaanba ciidamada qalabka sida ama ciidamada militariga ama ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo had iyo habeenba heegan u ah ilaalinta dalkooda hooyo ka ilaalinta dalkooda hooyo cadow dibadeed oo see weerara u diyaara mar kasta in ay dalkooda gudihiisa xitaa haddii looga baahdo ay mar kasta heegan u yihiin ilaahay ciidamadeenna qaranka jamhuuriyadda somalilan kuwo sanadba sanad ka sii dambeeya hore uga sii mara cimriga iyo caafimaadkaba allaha u siyaadiyo ciidamada qaranka somalilan iyo ciidamada qalabka jamhuuriyadda somalilan horumar ballaadhan baanu higsanaynaa horumar ballaadhan baynu rajaynaynaa dalal fara badan oo caalamka ayaa maanta inagu soo xidhmay dalal fara badan oo taakulaynteena iyo tabarteenna in kasta oo aynu innagu isku tashannay oo taag iyo tamarba wixii aynu lahayn aynu isu geynay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan fikir iyo caqli wanaagsan ay la yimaadeen oo ay doonayaan inay dalka ku horumariyaan oo ay dooneen in dadkooda ay ku abaabulaan isku tashi ayaa la keenay isku tashigaasina waxa uu keenay in dhammaanba dhinacyada kala duwan aynu ka horumarno iyo ciidamada qaranka somalilan oo wakhtigan xaadirkaa carabkayga aan ku hayo cunahaygana aan soo marinayo codkayga aan ku muujinayo ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ama ciidamada qalabka jamhuuriyadda somalilan doorka ay ugu jiraan sharafta iyo karaamada ay ka mudan yihiin shacbiga somalilan iyo mar kasta shacbiga somalilan sida ay u qiimaynayaan iyo dabaaldegani sida ay ilaa xalay toole ugu soo baxayeen dadka qaar baaba seexanba waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed xuseen cali mudane madaxweyne ciidamada qaranka ee somalilan gaar ahaana militariga ee halkan kaa salaamaya iyaga iyo gaadiidkooda noocyadooda kala duwani waa ciidan muddadii aad talada dalka hoggaaminaysay runtii aad tacab badan gelisay ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxaanay maanta markhaati cad ay u yihiin ciidamadaasi kala duwan hadday noqon lahayd militariga booliiska asluubta ilaalada xeebaha immigreshonka iyo ciidamada kale ee qarankani leeyahay muddadaasi inaad tacab badan gelisay hadday noqon lahayd tiradooda dhisitaankooda iyo weliba hubkooda kala duwan ee ay ku gaashaaman yihiin mudane madaxweyne ciidamada hortaada maraya ee u diyaarkaa inay ku salaamaan
waxa ay qaranka u qaabilsan yihiin sida adiguba aad og tahay iyo shacabka somalilanba difaacidda qaranka gaar ahaanna xuduudaha kala duwan ee dalku leeyahay marka looga baahdo gudaha waddankana mar kasta ciidankani diyaar bay u yihiin taliyaashii kala duwanaa ee tan iyo wakhtigii qaranka somalilan uu gobonnimadiisa kala soo noqday soomaaliya sannadkii kii 18 mey taliyaashaasi midba meel ayuu soo gaadhsiiyey halka ay maanta tagan yihiinna waxaan insha allah rajaynaynaa inay ka sii socon doonaan horumarkooda ciidankani mudane madaxweyne waxa ay hadh iyo habeen ay heegan ugu jiraan oo ay naftooda iyo maatidoodii iyo guryahoodii iyo carruurahoodiiba ay uga tegeen oo ay xuduudaha waddanka u degeen oo ay halkaa u joogaan sidii ay qarankooda ay u difaaci lahaayeen ugana ilaalin lahaayeen cid kasta oo isku dayda in ay waxyeelayso mudane madaxweyne ciidanka milatariga ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka mid yahay ciidamada farakutiriska ah ee qarankani leeyahay ee hadh iyo habeen heeganka ugu jira inay ilaaliyaan cadowga ka ilaaliyaan somalilan axmed sakow madaafiicdii goobta ee kala duwaneed ayaa ina weyda socda ciidanka tiknikada gaar ahaana ciidamada bmka qaybihiisa kala duwan bmku waxaweyaan tiknikada ugu culus baa la dhahda bmku qaarkood 12 baa ka dhaca qaarkood 12 baa ka dhaca qaarkood 40 baa ka dhaca qaar kaloo qaarkood waxaa ka dhaca qaar boox baa ka dhaca ciidankaasi ayaa haatan inadii kale ayaa iyaguna ciidamada milatariga jamhuuriyadda somalilan taliyaashii soo maray allah u naxariisto xasan yunis abane xasan cali abubakar oo isagu waa nool yahay cismaan cawad allah u naxariisto waa dhintay ismaaciil shaqalle cabdisamed xaaji cabdilaahi nuux taani maxamed xasan cabdilaahi stif rag fara badan oo caynkaasa midba maalin buu soo qabanayey nuux taani waa ninka ugu muddada dheer oo ciidanka dhowr jeer ku soo noqnoqday maxamed xuseen anigu shicib baan ahay qoryihii inoo hormarayey maalin maalmaha ka mid a anigoo la socda madaxweynaha oo wasiirka arrimaha gudaha ayaan maqlay mid la ridayo deeta odayaashii reer miigaaba waxay dhaheen warbaalkii nebi lahaa halkan ka dhacayey halkaasaan ka gaadhay oo shicib baan ahaa laakiin maanta xabadda waan garan karayey laakiin maasha allah nuux taani iyo ciidamadiisa milatarigana waynu habalaynaynaa waxa weeye dal iyo dadba juhdi fara badan baa la geliyey aad iyo aadna waxbaa loogu qabtay dhammaanba saraakiil xigeennada alufleyda iyo dableyda way ku ammaanan yihiin hawl kasta oo ay qabteen dalkan iyo dadkiisuna way u og yihiin waxaan mar kale 18 mey sanad guurada 11aad la soo noqoshada madax bannaanida somalilan aan ku hambalaynaynaa guud ahaanba shacbiga somalilan meel kasta oo ay ku sugan daafaha dunida oo ay kala soconayaan muuqaalada kala duwan ee telefishinada af soomaaliga inta qorta iyo inta wax live ku gasha dhammaantiin way inoo soconayaan markaa gabagabada qolyaha brotokoolka ayaana siin doono inta inoo hadhay iyo hawsha hal ay marayso waa tahay ciidamada milatariga cududoodu waxaad moodaysay dadka telefishinada daawado beryahan dambe ruushkii oo yukrain ku socdaad moodaysay siday ciidamadoonu inoo hormarayeen maasha allah tabaarkalla way soo socdaan weli inagamay dhammaan ciidamadii qaranka jamhuuriyadda somalilan tiknikadii ugu cuslayd ayaa aynu sugaynaa oo soo mari doonta halkan waddooyinka waa laga bixi doonaa hareeraha waa laga durki doonaa ciidamada qalabka sida ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ka mid ah ayaa halkan soo mari doona kaarayaashii baa soo mari doona ciidamo culculus baa soo mari doona waynu u diyaar garoobi doonaa waxaynu noo saarannaa heestii ciidanka qaranka kaygow dhintiyo gaashkiyaan hurdada ku gamaynayo gumuciyo rasaas sumuciyo kataan gumuciyo rasaas sumuciyo kataan gasigan galaabani kaadadow dhigo gumuciyo rasaas sumuciyo kataan gumuciyo rasaas sumuciyo kataan
waa markii ugu horraysay ee ciidamo tiradaasi leeg ay ka qayb qaataan xuska baaldegga munaasibadda 18 May waa markii ugu horraysay ee ciidamada qalabka sida gaar ahaanna ciidamada haatan soo socda ay ka mid noqdaan in ay ka qayb qaataan sanad guurada 31aad ee la soo noqda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waxay ku tusaysaa halka ay awooddeenu maanta gaarsiisanahay iyo horumarka ballaaran ee difaaca dalka ciidamada loogu talagalay gudayo dibadda maanta halka wanaagsan aynu ka maranno hagaag ciidamadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliland intaasay ku dhamaadeen kelmadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne raalli ahaada waxaa hadhay gabagabadii ciidanka shacbigii baa daawashadii iyo u sacabtukii naga xidhay waxoogaa gabagabadii waad mahadsan tahay gabagabadii ciidanka qaranka ayaynu eegi doonaa insha allah kadib waxaa kelmadii munaasibadda odhan doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 30 sannadood oo ku wareegay la soo noqoshadii madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland gabagabadii ciidanka ayaa soo maraya
kelmadda madaxweynaha oo dal iyo dibad lagala socon doono gudo iyo dibadda waayey kelmadda madaxweynaha ayaynu sugi doonaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحدا صدحدا قول قرن قورتدا وكيلدا إيا قرصورك مدحوينا كحيقيندي هوري حبناها وزيردا حبناها بارلمانكا تلياشا عيدمدا قرنكا وفودا كاكلا سعوتو دلالكا إنو جاركا نهاي إنو سو قيب قشي دلالكا جيبوتي iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya diblomaasiyiinta nagala soo qayb galay ee ka tirsan dowladaha aynu saaxiibka nahay madaxda xisbiyada qaran marta sharafta dhan ee goobtan fadhida shacabka Soomaaliland gudo iyo daba meel kasto ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib maanta sanad guurada 11aad aynu u dabaaldegayno iyada oo aynu in badan fadhinay saacado badan anoo kor xaadsanayo oo soo koobaya haddii aan ka dul maro taariikhdeeda waa laga wada dheregsan yahay xorriyadda markii aynu qaadanay bishii 26 juun 1 juulaay markii labada dal la isku daray ee ay midoobeen waxay la tahay ciidamadii weli qaar baa hadhay waa mahadsanti malaha waa maqlaysaa وما تنتين بسم الله الرحمن الرحيم لا ياب ملها لا ياب ما يهدين هاكيين وايا waxa lagu dhalinyarada shicibka hor taagnaa ku dhigayay qolada ruushka baalaha dagaalka taqaana waxay dhaw waa go'aamiyaha dagaalka taangigu cid walba waa ka adag yahay marka hadduu inaakiyo dul qaadanayna sanad guuradan maanta aynu dabaaldegayna halgankeedu wuxuu bilowday bishii Juulaay 1960kii dowladdii u horeysay ee laga dhisay Xamar inaga oo doonayna dhammaan Soomaali haddii la ahaa Soomaali way shan Soomaalida isu yimaada iyada oo Somaliland ugu horeysay dalkii cashantii calanka qaatay shuruud la'aan iyo iyadoo gorgortan badan gelin maalin labaadii ay xorriyadda qaatay 27kii baarlamaankeedu wuxuu go'aamiyey in shuruud la'aan la doono shantii Soomaaliyeed oo inagu aynu u horgalno oo aynaa shuruud ku xidhan midnimada aynu bilowno sidii baa lagu tegey khilaafkii halkaa ka dhacay oo ka bilaabmay dowladdii ugu horreysay ee la dhisay Juulaay 60kii wuxuu u quusgooyey inay Soomaali isu timaado saddexdii kale markay ay arkeen isha cali ka laalaada Soomaaliland sida wax loogu qaybiyey ayay dib uga maageen saasaana ilaa maanta kula maqan yihiin oo mid waliba deegaankiisii halkuu deganaa dowlad ka dhistay oo uu la nuuriya haddii aynu ku hakanno khilaafku muxuu ka dhacay dowladdii halkan ka tagtay ee Somaliland protectorate calankeeda qaadatay iyo Soomaalidii Talyaaniga ka xorowday markii ay isu yimaadeen ay Somaliland tiri shuruud aan baan kula midoobay waa hal wasahlan waxay qaybiyeen iyaga oo markaa xaruntoodii loogu tegey oo marti loogu ahaa walatinimo loogu tegey waxay yidhaahdeen madaxweynaha koonfur baa leh ra'iisul wasaarahana annagaa leh wasiirka khaarijigana annagaa leh wasiirka daakhligana annagaa leh wasiirka maaliyaddana annagaa leh caasimadduna waa Xamar
dekeduna waa xamar labada taliya ciidanka militariga iyo ciidanka booliiskana annagaa leh waxaanu idin siinay 3 wasiir iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo saasood ku shaqo gasha khilaafkii maalintaa bilaabmay wuxuu socday kolba heeru yeeshaba 30 sannadood kol hadal iyo gabay buu ahaa kol gubaab buu ahaa kol maxaanu yeelnaa sidaan ka daaya ahayd mar dhexe ayaa madaxweynihii labaad allah naxariistay cabdirashiid iyo raggii la talinaya la yidhi aynu siino prime ministerka somaliland allah naxariistay cigaal baa la magacaabay 6 bilood markuu joogana 20 jir oo baa loo diray uu cimrigiisa intay badan ku dhamaystay wasiirkii khaarijiga ugu horreeyey 2 ayay ahaayeen somaliland oo laga magacaabay madaxweyne yuusuf caalo ahaa markuu yar hayay jeel buu ku dambeeyey 10 sano ah kii ku xigana cumar cartu ahaayoo dil baa lagu xukumay oo intii joog waxba tixi maayo dhibaatooyinka siyaasiga ee keenay in la iskhilaafo waxay socotaba wuxuu tegay nac iyo colaad iyo dagaal dhig badan ku daato iyo burbur ay dowladdii somaliland ugu dambeysay ee militariga ahayd ninkii ka talinayay uu ku amro waa in la muslimiyaa oo la xaqaa daaraha iyo barkadaha iyo ceelasha xataa dadka nool waxay gaadhay in lagu shido iyaga oo nool ceel lagu rido lagu gubo waa haysaan taariikhda ka dhacday kal sheekh oo kale dad shiciboo inta la soo ururiyay boqolaala oo lagu daadiyey meel dooxa oo laaga iyaga oo nool iska ragoyn waxa lagu daadiyey kamay dhacay caalamka walaaladee waxay noo qureen dowladii ka dambeeyay dadkan loo quray hase yeeshee markii dagaalkii dhammaaday ee somaliland xoraysay dalkeedii wixii u horreysay ee dhawaaq ka soo baxay snm iyo odayaashii somaliland sidoo waxayd in la iscafiyo oo wixii dhacay aan dib loo eegin oon calolxumo laga qaadin ee la walaaloobo kumanaan ciidamo ah oo koonfur ah oo fara badan oo kuwii dhegta dhiiga dadka u darayay ah ayaa la yidhi yaan la taabanin ee hal la nabadgeliyo allah u naxariistay ninkii hor socday ee arrintaa u yimid colonel caarro ah general caarre ayuu ahaa iyagoo nabad qaba dhammaantood burcu ka saaro ilaa ay koonfur bukixiyey waayo waxaanu aragnay tasaamux iyo walaaltinimo wax ka badan oo ka wanaagsan inaan la helayn somaliland wax kastoo soo gaadhay iyadoo qaawan oo aqalada ay yaallaan dadkii waayeelka ahaa iyo kuwii socon kara laayay ee lagu laayay lafahoodii oo aan dadkii meydka suuqooda yaalla la aasin ayaa waxay ka bilowday inay nabadgelye ka doonto somaliland oo dhan jaarka oo dhanna nabadgelye gacanteeda ugu fidiso burca la isugu yimid 17 oday oo erga ahaa oo ka socday dhammaan beelaha gobollada iyo degmooyinka somaliland oo suldaanna leh oo caaqila leh oo shuyuukh leh oo garaad leh ayaa halkaa isugu yimid iyo dad badan waxa la guddoomiyey 2 qodob inaan colaadii hore laga bogso xalay dheer laga noqdo dhinac walba hadday gudaha somaliland wax kala gaaray iyo hadday tahay Soomaali koonfureed iyo hadday cid walba tahay inaynu gacan badan cid boobsano dagaal weyn ka soo daalay walaaladayna ka doono iyo mar hadday duntay dawladdii loo midaysnaa ee 60kii la isugu tagay 30 sana aan la mahadinin ay dagaal iyo colaad iyo nac inoo tartay in gobonimada Soomaaliland lagu soo celiyay 26 Juun ayay go'aamiyeen waxaana saxay 17 ah oday oo ahaa dadkii awoodda loo siiyay inay ka soo tariyaan ururka snm oo guddigiisii fulineed iyo golihiisii dhexe iyo guddoomiyihii oo markaa ahaa cabdiraxmaan axmed cali iyo xasan ciise ku xigan ahaa waxaa la yidhi ka soo taliya annagu hana odhanayna jabhaddiiba iyadu waxay doonto qaadatay waa taariikhda markii ugu horreysay ee jabhad dhul qabsataa ay ku tidhaahdo dadkeeda iyo shicibkeeda soo taliya marti baanu idiin nahay waana ta aynu maanta ku dhisannay aynu halkaa ku gaadhnay go-aankii maalintaa la qaatay dhibaatooyinka ina soo gaadhay dhowr iyo 30 sannadood aynu wada jirray waxaa ka mid ahaa 2 dagaal ee Ethiopia lala galay culayskoodii naf iyo maal iyo burbur wuxuu ku dhacay Somaliland waayo iyada dabxigeenka ahaydo ugu soo dhaweyd gobollada dagaal ku dhacay hantida kaga burburtay dagaalada halka aynu fadhino maanta ee inaga soo horjeeda degdeg baa loogu dhisay crash xoog dadka Somaliland
in dhaawacii 77 la dhigo oo boqolaal iyo kumanaan ah dhammaan dadka degan Hargeysa ee meelaha u dhow dumarkoodu halkaas soo bacday dhaawaca ugu marayeen cuntada u karinayeen markaasay diyaaradda ku sheegay dagaal ku dhacay laga soo gudub dhibaatooyinka 31 sannadood oo aynu kala maqnayn 91 kiilo maanta walaaladeen kama inaan helin wax garabshiya kama inaan helin garqaadasho waxa isku raacsan dhammaantood inaanu nahay gobol kamid ah oo aan naga bixaan oran karin xor baan aan sheeg karin kii horeeyay ee madaxnimo loo doortay carta lagu doortay hadda ka soo qaado ilaa ka shalay la doortay talada waa ka simiyay waa yaab hal qodob baan u sheegayaa walaaladeen ninkii la odhan jiray wiilwaal waxaa laga hayaa oo malaha nin aad iyo aad dhibaatooyin badanka ugu hayay wada ragga walaal wuxuu dhaamo waaye haddaanu Somaliland nahay haddaan ka mid ahay odayaasha Somaliland maanta ugu da'weyn ugu waay aragsan dagaaladii waxay soo maray annagu halkaasaanu taaganahay walaalayaalow wadnayo walaalo wax dhaamo garan weyne inaad nala garataan baanu jecelahay oo aydan diisiin Somaliland farintaan diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in ilaahay idin barkayo saa ku wadana khilaafka idinka jabiyana waa idinka ducaynaynaa inaguna inuu kala nabad galo isu dacayno oo waana jiran ahaa baanu idinka doonaynaa kii hore iyo kii dambe intaa markaan dhaafo 31 sannadood da'da maanta jirta Somaliland tira ahaan waxay noqonayaan 5% dadka Somaliland iyo dadka Soomaaliyaba labada dhalinyaro midna ma arag mana garanayo dawlad Soomaaliyeed oo midaysnayd dhalinyarada koobisto jirka ah ee Somaliland waxay dhasheen oo garaadsadeen oo maskaxdooda ku sawiran iyagoo qaxaya iyagoo xero qaxayti jooga isagoo aabihii la dilaayo iyadoo gurigiisii diyaarad garaacayso isagoo walaalkii oo meeyda loo sheegayo isagoo leeyahay walaalka meel ku dhintay lama garanayo dhammaantood maskaxdooda waxa saa ka sawran oo yaa inoo geystay waxa la yiraahdo Soomaaliya koonfur bay qabaan waxa la doonayaa in laga daweeyo waxa laga doonayaa in cadaaladda la damiyo gacantiina ku jirta walaalayaal kuwa jira 6 sannadood 31 iyo 60 u dhaxaysa waxay ku galaadsadeen oo ay arkayeen oo ay galeen iyagoo ciyaar iskuula iyo iyagoo hooyada xaynka haysta iyadoo diyaarada rusheynayso iyadoo habeenkii la baxay aabihii iyadoo walaalkii la jirdilaayo iyadoo adeerkii la waayay iyadoo inantoodii habeenkii oo dhan ka baqayna tolo hawlaha maal kubsan oo hooyadooda qarka dhaxooyso ayay garaadsadeen dabeetana hubkay qaateen waa dadkii taagowlaayay waa dadkii isu dhigay dalka waa kuwii xoreeyay waxa ka noolaa waa dhaawac iyo naafo bogsiinteeda iyo waxaan ku wada hadlayno walaalayaal idinka la rabo dadka muqdisho ka taliyo waxaan ku talinaynaa waxaas waa wax tagay ilaahay batayna aynu tala wanaagsan oo aynu laba dawladood 60kii amaanta laba dawladood kala gaara inaynu nahay in ay idinka dhaadhacdaa baan idin soo jeedinayna haddii kale Soomaaliya aayar aanu dhow waxay kala dhaxasho intaasaan ku dhaafayaa dhalinyarada Somaliland ee da'da iyo 60ka ama dhexaadka haddaan ka mid ahay inta Somaliland ugu weyn ugu waay aragsan oo laga yaabo inaanu nahay da'deedu 10% iyo in ka yar waxaan idin soo jeedinayaa marka koobaad waa nasiib badantii mustaqbalkiina wuu ifaya waayo waxa haysataan dalkiina oo xora oo idinku aad ka talisaan oo cadow idinka talin oo cid idin soo fargelin taladiina idinku qabsan waxaad nasiib u hesheen inaad madaxweynaha fartiina ku bedeshaan oo baarlamaanka gacantiina ku bedeshaan oo dawladda hoose ku bedeshaan waxaad nasiib u hesheen inaad heshaan media iyo casri technology cusub oo adiga oo shayto jira inta halka fadhiista rayagaada cabiri karto oo din kastoo awoodda kula hadli karta caalamka halka doontaad ka gaari karto waxaad nasiib u hesheen saxaafad madax bannaan oo aad u madax bannaan oo halka joogto wixii jira ku soo gaarsiinayso waxaad nasiib u hesheen jaamacado iyo aqoon idinku timid guriyihiinii maxaa idinla gudboon mustaqbalkiinu wuu ifayaa baan idhi waanan ku celinayaa waana runtayda waanan aaminsanahay 95kii iyo 96 mid ahayd mooyeene
intaa aan leeg maxamed xajiraaciil baa ka yidhi halkaa maanta miisbaka kordhisana khayryada wuxuu yidhi anigu inaan gaadhiyan kala alla og hargeysoo daaro dhaadheer oo cadcad leh iyadoo ciidankeedu qalabaysan iyo qurux badan yahay iyadoo caalamka oo dhibdhegeysanayo ayaan hubaa in la gaari doonee dhallinyarooy u guntada oo ha ku niyad jabina dhibaatooyinkeenu marayno maanta da'diinna haragada jecel ee wax waliba inay maalin ku qabsoomaan doonaya ee da'daasna waxaan leeyahay waxa idinla gudboon kow dadaal waxa idinla gudboon kalsooni waxa idinla gudboon dhibaatooyinka yimaada ee adduunka ka jira ee cimilada isbedesha ugu kulush ay ugu horrayso ee abaaraha iyo biyo-la'aanta ku gatay geeska afrika o dhan aan loo wadaagno sidii loo maarayn lahaa inaad aqoontiinna iyo xooggiinna iyo fikirkiinna aad ku maaraysaan mar haddaad da'dii xilka qaaday aad tihiin ee u dhaxaysa 20 ilaa 60 waxaa kaloo idinku boorinayaa inaanu wahsi iyo hadal badan oo meel lala fadhiyo iyo qayiraad iyo balwadeetoo nafta dishay haddaad gashaan inaydaan meel gaadhayn oo aydaan mustaqbalkiina idinku qaabayn karin mustaqbalka inaga qaabayn kara ilaahay baa inooga dhigay dadka bani aadamka khaliifatu fil ard ilaahay baa yidhi adduunyada idinkaan diinay waa maamula kuwaasaa kama tihin oo dalkiina laydin dhiibay rag iyo dumar waxaan ka doonayaa inaad mustaqbalkiina qaabaysaan oo ku qaabaysaan aqoon iyo karti iyo adkaysi iyo idinkuna isnabadgeliya dalalka adduunkana ka nabadgala adduunkana iskaashada oo gacanta isqabsada dhalinyarada intaa markaan idhaahdo odayaasha maxaa la gudboon odayaasha waxaa la gudboon dhalinyarada inay tubta wanaagsan ku hanuuniyaan hadduu odaygu markuu inanka habeen ku yimaada ama maalintii ay meeris ku yimaadaan balaayo ka sheekeeyo iyo beri waa layna laayey oo kolla uu dagaallo aan dhammaanayno ilaa iyo 100 sannadood ilaa daraawiish ilaa kuwii ka horreeyey ka sheekeeyey iyo qalbi xanuun oo inankaba hoos u jeediyo ama inanta yarba hoos loo jeediyo mustaqbalkooda oon la odhanin aday adduunka xukumee dhaqaaq dee carruurta hore u socon mayso waxaa lanaga rabaa waayeelku inuu dhallinyarada u tilmaamo wax fi aakhiro u wanaagsan wax bani aadmiga u wanaagsan wax somaliland horumarkeeda u wanaagsan wax caalamka aan odhan nool lahayn saynu nool lahayn u wanaagsan odayaasha iyo islaamaha waaweynna intaasaan faraya maanta maxaynu hor yaallaa haddaynu somaliland hadda waxaynu hor yaallaa dhibaatooyin dhowra waxa ugu horeeya dadku ictiraaf iyo inama ictiraafin iyo ictiraafku waynu ictiraafo ilaahay baynu ictiraafo oo inagaas ictiraafnay dowladaha iyo bani aadamku waxay ku doonaan ma wada shaqaysanaa wax ma wada qabsanaa kii diidana ahlan wasahlan kii ilaa waxay la qabsanaya waa wanaagsan tahay anuu garan maayo ictiraafka intaa ka bedelay doonaysaan garan maayo ictiraaf idiin soo seen lacag garan maayo haddii la ictiraafay inay dowladaha kale dalkiina idiin dhisayaan garan maayo inay dowladaha ictiraafaa idinka caqliina bedeli doonaan waar caqligaah laga baxo ictiraaf waa maqan ilaahay baa ku ictiraafay waa inagaa dhisannay waa inagaa nool waa inagaa dhibaatooyinkeena xalinaynaa aynu halkaa ka korrinno nin waliba salaam buu kuugu imanoo maxaan kula qabsaa buu ku odhan marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka in haysta waxa ugu weyn maanta waa cimilada isbedeshay dii cimilada isbedeshay uma noqonayso waa saasay ku wadaysaa inta la ogyahay kulayl baa yimid abaara soo noqnoqoyaa yimid maxaynu u baahanay markaa waxaynu u baahannahay oo ay lama huraana inaynu saynu dhaqmi jirnay wax ka bedelno haddaynu somaliland tahay waxaynu u badnayn xoolo dhaqato iyo beereley magaaladuna waxay ahayd ku noolayd waa intay qabtaan xoolo dhaqatada iyo beereleydu waxay tabcaan baynu kala dilaali jirno aynu ku noolayn ari la dhoofiyo waxay beeraan aynu cunno hawsha ay kusoo tabcaan ayay magaalada ku tiirsanay haddii xoolihii abaari ku dhacday way sii dhammaanayaan haddaan si kale loogu dhaqin haddii beerihii roobkii ku adkaaday oo haddaan xal kale loo helin aanay si hore wax ka soo baxayn innaga laynaga rabaa inaynu keenno xal walaalayaal haddaynu somaliland nahay ilaahay wuxuu ina siiyey bad iyo berri khayraad ka buux adduunyada dhibta way soo wada martay haddaa u fiirstaan taariikhaha la qoro meeshan saxaraha la yidhaahdo iminka iyo dalalkan saxaraha africa ee weyn waxaa laga helaa sawirada iyaga oo goodir iyo biciid iyo geri joogo oo ay meeshaasi ahaan jirtay beri warbaaqo isbeddelkaa keenay inay desert noqoto laga yaabo inagana geeska africa oo dhanba waynu ka sibannahay waxa socda isbeddel cimilo oon cidina waxba ka qaban kara ilaahay mooyaane sidaa darteed waxaynu u baahan nahay noloshii reer miiga ahayd ee xoolo la daba socdo iyo beer cirka loo eego roobma imanaya la yidhaahdo inaanaynan ku sii noolaan karayn waxaynu u baahan nahay inaynu bedelno
qaab nololeedkeennii oo udadkeenna aynu ku wada dagaal galno aqoon iyo maal iyo talaba inaynu somaliland inteeda badan ay qabatimaan xeebaha iyo khayraadka badda inay ku tirsadaan taasaa ilaahay barakeeyey adduunkuna iminka ku wada socdaa waanay buuxdaa waanay naga badan tahay walaalayaal talabaad aynu kaga badbaadi karnaa waxa weeye hadduu ilaahayna siiyey dhul maanta markhaati madoona oo aynu ka mid nahay u malayn maayo malaha dalalka jaarkeenna inuu jire anu maan maqale dal intuu nin buur fuulu aroortii iyo galabtii wareegeysta uu dahab ka hela budusheeda oo uu iibiyo oo bannaanka yaalla somaliland marnu ku hubaa dalalkana xoogaan uma yihi laakiin maan maqal bal ka warraba dal adoo nool aroortii intaad dugayso buuraha ka mida maanta mid walba dahab laga raadinayo haba yaraado sanadkii 2018 gobolka sanaag buurtaa dahabka laga helo dahabkii laga qaaday ee dibadda loo saaray wuxuu ahaa 84 kiilo oo aan midda la baarbaarin ee dusha laga soo haray ninkii ilahay nisbigiisa la kulmiyey bal caloosheeda ka warraba waxaynu u baahanahay dhulka macanta qodno xooggiina waynu haynaa caqligiina waynu haanaa maal badanuna ku bilowna waynu leyn haddaynu qaranka somaliland nahay adduunkuna waa diyaar inaynu caawiyo haddii aynu la nimaadna caqliga adduunka aynu isu afgaran lahayn oynu ka maal lahayn maxaa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay cidda maanaysa ina imanaysa inaynu dhulka ku soo dhoweyno uu ina aamino uu carruurtiisa ku aamino uu maalkiisa ku aamino oo markuu wixiisa geliya macaashkiisa ula baxaayo uu ku aamino ayaa kow ka ah taa haddaynaan maskaxdeena ku beerin cidina aynoo iman mayso innaga gudaheennu waynu baaran karnaa waynu la soo bixi karnaa in lacagna waa leenahay waxaynu u baahannahay in markayna aynu waxaa qabsanno loo wada jeedsado ee aanay dadka qaarkeed noqonin geela waxaa jira marka lasoo dalka lasoo joojiyo geel baa jira isaga geeloo jiira oo dalka jiira oo dumiya oo halka ka idhaahdeen qolada geela dhaqdaa waa naftaadeen